dadku waa laba nooc. dadna waa dad waqtigooda ka faa'iideysta, dadna waa dad maanta waxa aan loo dirsan lugaha kula jira. waxaad arkaysaa maanta oo idil meelo badan oo aad ku arkayso inay commentiyo kala baxayaan, dadyo aflagaadeynayaan, dad ay ku dhagan yihiin waxaan loo dirsan ama shaqadooda aysan ahayn maanta oo dhan hadalhayaan. gambalku hadduu dhacana hal shay ka mid aysan gacanta ku hayn. waxaa la yidhahdaa sheeko yar waxaa jirto oo iska sheeka ah oo waagaa ilmanimada la iskaga sheekeeya ah. xayawaanka la yidhaahdo daanyeerka waa xayawaanka ugu shalaytada badan markii la sheego, sababtoo ah xayawaanada kaleeto hadduu gambalku dhaco mugdiga habeenkii la gaaro waxay leeyihiin gabaad ama guryo ay ku hoydaan, ama godkii ku hoyana ha ku hoydo, kii samaysto abuul yar oo ku hoyana ha ku hoydo. laakiin daanyeerku sidaa maaha. daanyeerku waqtigiisa waxaa lumiya waagu markuu baryo, marba bootintoo bilaabo, marba geed ugu boodayo ayaa waqtiga ka ilaanaya. marka waxaa la sheegaa inuu shalaayo, macnaha waa iska sheeko oo waxa uu leeyahay la dhahaa haddii biri waaga uu bariyo waxaan samaysan doonaa guri, balse shaqadii iyo orodkii iyo bootintii halka ayuu ka sii wadaa. marka waxaa la yidhahdaa daanyeerka ayaa shalayta badan xayawaanada. marka ha noqon sida daanyeerka oo kaleeto oo waqtigaaga ka faa'iideyso. maanta wixii ku anfacaya juhdi geli. social media waa seef laba aflaah, hadba qof walba sida ugu faa'iideysto weeyaan. dad waxaa jiro maanta ka faa'iideystay dhanka wanaagsanna u isticmaala. dad baa ka ganacsada, dad baa wax ka qabsada, dadyowna waxaad arkaysaa waa qasay labanay iskaga jiraan. haddaba waxaan idinkula talinayaa asxaabteyda, mar walba wixii ku anfacaya ku dadaal. wixii ku anfacaya ku dadaal oo waxaad iskaga tagtaa waxaanan ku anficin. waqtiga yar ee kooban lagu siiyey inaad ka faa'iidaystid ayaa adigaba kuu fiican. maanta mustaqbal baad leedahay, famil baa kaa dambeeya, qoys baa kaa dambeeya, ehel baa kaa dambeeya. waxaad rabtaa inaad dadkaasi maanta shalay siday kugu soo dadaaleen inaad maanta wax ugu qabatid. soo niyo xumo ma ahan qofkii maanta laga soo baxshay dugsigiisii quraanka, iskuulkiisii, jaamacad la baray, juhdi la geliyey, aabbaha iyo hooyada lacagtaas ay kugu bixinayaan kama dhargana. maybe laga yaabo inay xitaa u soo xamaalaan ee wax kasta u soo qabtaan. maanta haddaad naqatid ruux waqtigaasi la soo geliyey kullumiya waxaana loo dirsan sida inuu ciyaaro daawado, Premier League, dad shaqaysanayo maxaa adiga kaa galay? dad maanta saacadoodii ay u qiimeysan tahay ee lacag ugu fadhiiso maxaa adiga ku daba dhigay? inaad ciyaarto game maxay kugu soo kordhinaysaa? geemamka hadda loo badan yahay sida beesaska, sidoo kaleeto PUBG-ga waad ciyaartay keliya bombala ayaa carcararay, kadib waa dilay, waa ka baxay, luuqaana ka baxay, waqtigaa gambalka kugu dhacay. maxaa ka faa'iiday? taamkaagii waa luus garaysay, ehelkaagii iyo familkaagii waxba maadan u qaban. maxaa kugu soo siyaaday oo aan daal iyo hardan aanan waxba ahayn oo hal bacad lagu lis ah ee keliya ay tahay? dabcan dhan kale haddaan u janjeersado dhanka hablaha oo kaleeto inaad musalsal daawatid oo aaminsanaa aysan waxba kugu soo siyaadinaynin, filimaan aad og tahay dadka sameynaya aad arkayso inay maalaan iyo been la iska gadaayo, inaad waqtigaaga gelisid, inaad la qiirooto. halka saacad filinkaas fiirsanayso ama musalsalkaas aad daawanaysid waxaa kaaga qiim badan 15 daqiiqo aad wax korarsatid. cilmi adduun iyo cilmi aqal midkood doona ha ahaado, cilmi adigu anfacay. haddaba waan ku fogaaday hadalkayga, mar walbana waxaan asxaabteyda bahda Birlaba FKS aan u sheegaa noloshaada inaad farxad ku noolaatid ayaa ka wanaagsan inaad zaxmad iyo waxaan loo joogan aad ku noolaatid. ogsoonow maanta waxaan tahay jiilka
ama ubaxa ama hoggaanka beri dadyowna waxay ka dhismaan waa dhalinyar badankeena waxaan ahan waa dhalinyar marka waqtigaaga inta ugu badan wax ku anfacaya geli ugu horeyso ina cibaadada aad ku dadaashid maanta hal juz oo quraan aad akhriso ma badan tahay waa may hadaad joogtaysid oo subaxii markaad soo kacay sidoo kale shaqo walba qabo kaliya aniga ma dhahayo inaad forex ka shaqaysid ama aad skill kale aad wadid ay shaqo daarto wad ama dukaan joog ama gaari wad ama haaw min maqaad ka shaqeeya ama nin xirfad kala haya ama macallin iskuul ah waxa doonta haaw adigu joogteen yeelo aad in kugu filan inaad subaxii markaad soo toostid aad ku darsatid jadwalkaaga inaad tahay inaad quraan akhrisid hadduu jisku ugu badan yahay xisib aqri maqra aqri inta kugu filan kadib adigoo diyaarsan shaqadaada soo toos kaliya laguma dhihin adduunye kaliya buri laguma dhihin dunida idaas ka imaan doonto haddaba asxaabtayda nafsadeyda ugu horeyso iyo tiinaba waxaan ugula dardaarmayaa cabsida allah sidoo kale waxaan idinkula dardaarmayaa wixii anfacaya inaan ku dadaalno maanta waxaad arkaysaa in asxaabteen ugu badan aan ciyaar ku wada dhameyn waxaana qiimo lahayn inta haddii wixii xigmadda ay idlaadaan oo wixii wanaagga ay dhammaadaan waxaad ogaataa wax xun baa isku soo haray waxaad arkaysaa maanta channel waxaa jira YouTube oo wanaagga laga faafiyo xumaha la iskaga digo waxaad arkaysaa inta daawata fiiri inta warkuman oo ku xiran fiiri channelada maanta fiiri oo aysan waxba qiimo ama mid adduunyo mid aan qaraba aysan ku faa'iideynin inta qof ee ku xiran eeg waxyaalaha maala yacni dhankooda ayaan u janjaarsanay haddaba si taas looga gudbo oo qof walbo waa inuu nafsadiisa horta kuwaas ka bilaabaa sidoo uu bilaabi karaa isweydii adiga isxisaabi waaga markuu baryo oo gambalku u dhaco maxaa maanta ku hagaagay iyo maxaasan ku hagaagay war haddii hal xaraf oo maanta kuu soo faa'iida qabtaa laakiin shalay meeshaad joogtaa dad maanta joogtid berina waad joogaysaa taas waa laga maarmaan marka asxaabtayda qaaliga hadalkan waa idinku badiyey inta badan bahda Birlab FX anigu inta la cibaadaysanayay inta oo familka waqti la qaadan markii laga reebo inta ugu badan waxaan waqti gelinaa waxay tahay chartingka aad arkaysaan oo trend view-ga iyo suuqa aan dul joognaa anigu geel iyo ari toona ma raacno geelina iyo arigeena waa kanladaan aad arkaysaan marka muhiimna ma ahan maanta in qof walbo ilaahay meel walbo ka arsaaqaa qasabna maaha inaad maanta forex aad ilaa aad waxaad waa inaad ka helaa aad tiraahid arsaaqdan ilaaha baxsho maybe laga yaabo in ilaahay meel kale ka arsaaqayo maybe in forex ilaahay ka arsaaqayo marka waqtigaaga noloshaada isku day inaad farxad ku noolaatid waayo maanta dad yoo fara badan waxaad arkaysaa suuqani forex culays ku ahbo oo waxaad arkaysaaba murugaysan walwalsan baqanayo jareenayo adeer forex meelaad ku nasata ha noqoto ee meel zaxmad iyo culays aysan kugu noqon waayo culays dad rabto shaqooyin kale ay gal lahayd soo maaha maxaa isku dhibaysaa forex waqti geli adi uun baa fahmi doona aad baan u mahadsantahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.